dhacdada ka dhacday magaalada Laascaanood iyo dagaalka ka socda dagaalkaasi waxaan leenahay waa inuu istaago waa in la joojiyo waa in la wada hadlo waa in la wada fadhiisto waa in si degdeg ah uu istaago waa in dhiigga daadanaya iyo hantida burburaysa iyo dadka qaxaya la joojiyo maslaxa kuma jirto 30 sano kadib oo dalka ay dagaal la sokeeyo burburiyeen oo aqli iyo way aragnimo ay kordhi lahayd in maanta dagaal lagu noqday wax maslaxa kuma jirto duruustii ina soo martay inaynu wax ku qaadan weynana waa aqli xumo inteeda leeg dagaal wax ma dhalo faa'iidana ma laha markuu dad muslimiina u dhaxeeyo marka hore waa isu ka qurxinaya inaad faa'iido ku gaadhayso iska tusaya shaytaan baa ku muujinaya laakiin akhiran marka ugu dambaysa ceeb iyo dhooba ayaa dhex fadhiisan natiijana ka gaari maysid midhaheedana waynu haynaa iyadoo ay sida tahay oo waajib tahay in islaax iyo nabad dhulka lagu soo dabaalo dagaaladuna istaagaan ayay haddana waxa laga maarmaan ah oo ina arrintaasi diidaynin inaan cadeyno sida saxda ah iyo khaladka dhacay iyo maxaa haboona magaalada muddo fatra waxaa ka jiray nabadgelyo xumo waxaa ka jiray dilal qorshaysan oo hadafkeedu u ahaa lagu beegsanayay bulshada labeenteeda haldoorkeeda ganacsatadeeda culimadeeda odayaasheeda waxgaradkeeda ka duwan deegaamada kale ee xukuumadda Soomaaliland ay ka taliso oo muddadii 30 sano ahayd nabad iyo horumar iyo barwaaqo iyo wax ilaahay lagu mahadiyo laguna farxo ku sugnaa aad iyo aadna ay tahay in loo ilaaliyo loona hormariyo iyadoo deegaamada kale Soomaalida intooda badan qaraxiyo iyo nabadgelyo xumo iyo dhibaatooyin iyo muwaajahaad ka jireen haddana muddadaasi deegaamadaasi inay nabad iyo horumar iyo istiqraar ay ku noolaayeen waa wax lagu farxo ayna tahay in la sii xoojiyo oo aan dhaawac loo geysan laakiin waxa ka duwanayd magaalada Laascaanood dilalka dhacay muddada soo socday mas'uuliyadeeda waxa iska lahaa inay ama meel ku sheegto ama soo afjarto xukuumaddu meesha ka talinaysa yaa sameynaya yaa dadka leynaya yaa dadka iqtiyaalaya maxaa ka duway magaalooyinka kale waa su'aal isweydiin loo jawaab uga baahan xukuumaddu waa ku fashilantay inay arinta iyo malafka iyo faylka inay xalliso waana wax iska cad cid walba isweydiinayso nin walba maxaa dhacay see wax u jiraan qodobkaasi waa qodob muhiim ah qodobka labaad ee mudan in la tilmaamo wuxuu yahay dadkii deegaanku markay u adkaysan waayeen oo sabri waayeen oo ka kacdoomeen oo mudaaharaad ka kiciyeen oo arintii ka gadoodeen jawaabta la bixiyay ee xukuumaddu bixisay ma habooneyn inay noqoto dadka in xabad lagu rido la laayo ma ahayn jid kale wax lagu haliyaa la heli karay saxna ma ahayn dad aan hubaysnayn oo mudaaharaadaya oo qayliyaya oo xaq raadinaya in xabad la dhacay ninna garowsho ku heli maayo iyaduna sax ma ahayn mowqif sax ma ahayn gartu allay leedahay gari allay leedahay midda saddexaad waxay ahayd markay odayaashoodii iyo khiyaartoodii intay isu yimaadeen ay tashadeen go'aan ayagu ay maslaxa bideenna ku dhawaaqeen oo aynay Soomaali weyntaasi qayb ka ahaadaan ayadana ma ahayn jawaabta la bixin lahaay mana munaasib kuma ahayn
in dagaal lagu qaado madaafiic lagu garaaco sax maahayn meel kaloo la mariyo jid kaloo looga wareegaa la heli karay kullu dalika waa khaladaad isfuulay oo tahay in la cadeeyo anoo og Soomaaliga maanta joogay akhrintiisa iyo daraasadiisa iyo fahamkiisa iyo miisaankiisu inuu qabyaalad yahay oo in badan ay dhihi doonaan wadaadka waxa ka hadlinaya waa qabyaalad iyo dhalasho anoo og ayaan haddana aan dan ka lahayn xaqa inuu cadaadiyo sawaabka muhim ah haba kharaadaado laakiin waxa kugu soo gaadhay ay aflagaadiya faham xumaa ninkeeday u taalaa laakiin xaqiiqada in la cadeeyo waa laga maarmaan kullu dalika waxa mas'uul ka ah shacabka dawladda u talisaay mas'uuliyadeeda way ayada laga rabaa shacabka amnigiisa inay ilaaliso iyada laga rabaa istiqraarka inay ka shaqeyso ayada laga rabaa wixii dib ku soo kordho dadka inay iyadu xalliso iyada laga rabaa mashaakishani intaynan isqalin inay wax ka qabato mas'uuliyad dawladeed waay waxaan ma yimaadeen hadii ay hore wax loo xallin lahaa ayadoo taasi jirto ayaa haddana waxaan leeyahay xal ma aha dagaalku ninku faa'iidayna ma jiro waa in la joojiyo maslaxadana loo soo noqdo wada hadal loo soo laabto ummaddu wada fadhiisato dhiiga la daadinayo la joojiyo magaalooyinka la garaacayo la joojiyo dadka qaxaya la joojiyo dhibaatadan socota in ay istaagto way حتى هدي لوضع دين عميدكود وإسقرسينيو أما قرليه ما كان يسو إن مسلمين تديك وذا اللداديو بل سيدا في عني وحوي إن مصلحة اللوغة وريقوا